Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta soo dhawaada waxaa idiin wadaa mid ka mid ah coinsada ugu hadalhaynta badan uguna saameynta badan sanadkan cusub ee 2025 haddii aad maalgashatidna marna aadan ku khasaareynin marka coinka saa isu aragna waxaa tagaynaa coinakiska sida noo muuqato marka lixdan coin ee ugu horeysa waa laga dhiigeyste oo coinkan koowaad hadda ku dhufan oo kale BTC-da ah waa coinka koowaad $94,000 una maraa waa laga dhiigeystay oo waa laga faa'iidaa ka wadaa macnihii all time high hadda ku dhufanan waxaa arki karnaa inuu gaaro ilaa $106,000 sidoo kale 2016 coinkan wuxuu maraya $639 xilli ka hoose uu marayana way jirtaa oo dad badan oo xilligaas soo maalgashteen hadda ka faa'iideen sidoo kale Ethereum kan oo kale hadda ku dhufano waa coinka labaad sidoo kale wuxuu maraya 3440 all time high hadii aad fiirinana wuxuu gaaray 4800 sidoo kale 2016 asna wuxuu maraya $7 iyo jajab marka dadka xilligaas soo maalgashtay iyo ka hoose markuu marayay way ka faa'iideen sidoo kale XRP gan asna waa coinka saddexaad 2.2 yu maraya ama $2.20 all time high soo kale marka isla fiirinana wuxuu gaaray ilaa iyo 2.7 ama $2.70 sidoo kale asna 2018 coinkan wuxuu ahaa 10 cent wax u dhigmo marka dadka xilligaas soo maalgashtay asna way ka faa'iideen coinkan afraad asna waa USDT oo coin stable coin waa coin isbedbedela ma ahan sidoo kale coinkan shanaad BNB da $704 u maraa hadda waana coinka shanaad all time high marka isla fiirina ilaa iyo $749 u gaare sidoo kale 2020 coinkan wuxuu ahaa $9 oo kaliya marka dadka xilligaas soo maalgashtay asna way ka faa'iideen Solana oo kale daa ku dhufan $190 u maraa waana coinka lixaad all time high marka daa fiirina asna $258 u gaare 2021 kan wuxuu ahaa $2 iyo 90 senti ay $3 iska dheh dadka marka xilligaas soo maalgashta iyo ka yar markuu ahaa hadda way ka faa'iideen coinka wali aan laga dhiigeysan oo coinka toddobaad waa coinkan Doge kala dhaho 0.3 u maraya ama 30 senti all time high marka isla fiirina ilaa wuxuu gaaray 0.6 ama $1 kor u dhaafay 60 senti u gaare 2019 coinkan markuu wuxuu maraya 0.001 waa sentiyal aad u yar haddana wuxuu ka mid yahay coinsada ugu saameynta badan uguna hadalhaynta badan waa coinka toddobaad wali coinka lagama dhiigeysan ama lagama faa'iideysanin sidoo kale coinkan waxaa maalgashtay Elon Musk iyo Trump taasoo marka keeni karto dad badan oo labadaas qofood role model ay u yihiin inay ku daydaan aadna u maalgashtaan marka haddii aad tahay qof kriptada ku cusub waxaa kugula talin lahay coinka inaad maalgashatid coinsada kale lacagta haysto waa maalgashan kartaa laakiin coinsada mar hore laga soo faa'iideysto oo laga soo dhiigeysto waaye coinka kuugu habboon haddii aad wax fiican gashatid aad faa'iido fiican ka samayn kartid waa coinkan maadaama coin hadda dhaqaaqira uu yahay qiimo fiican oo macquul lagu gali karana uu joogo marka si aad isula ogaana qiimaha ugu macquulsan ee lagu gadan karo waxaa tageynaa calculatorka marka coin haddaa rabtid inaad si fiican uga faa'iidid waxa ugu yar ee laga gato waa 1000 xabo haddii aad ka badsan kartidna waa ka badsan kartaa tusaale ahaan coinkan hadda wuxuu maraya 0.31 ama eber dhibic 31 lagu dhuftaa marka dhahayna 1000 markaa ku dhufana waa $310 hadda ku maalgashan waxaa helanaa 1000 coins oo Doge 1000 coin marka haddii uu dhaqaaqo oo uu gaaro coinkaas $1 hadduu gaaro $1,000 noo noqoni sidoo kale haddii aad lacag fiican haysanin waxaa ka gadan kartaa 100 xabo 100 xabo saa aragna waa hadda $101 marka hadda haddii uu $1 gaaro coinkan waxaa helaysaa $100 macnaheedu $101 hadda ku maalgashatid oo calaa coinki $1 uu noqdo $100 aa helaysaa $2 hadduu noqdana $200 3 hadduu noqdo $300 waa maalgashi fiican oo aad ka faa'iidi kartid marka laga faa'iideysto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh